sida aan hore u sheegay ma jiro qof dhexdhexaad ka ah qadiyadda Falastiin maxaa yeelay qadiyadaas wejiyo fara badan ayay leedahay waana qasab in qofka bini'aadamka ay dhinac taageero asagoo ka fiirinaya wejiyo fara badan qof waxa uu ka fiirinayaa bini'aadamnimo qof waxa uu ka fiirinayaa gar iyo gardarro qof waxa uu ka fiirinayaa xag diineed qofna waxa uu ka fiirinayaa xag siyaasadeed waxaa kaloo jira dad badan oo dhinacyada qaar u kala taageersan siyaabo kala duwan sida isla weyne iyo kibir aqoon darre iyo jahli warbixin qaldan oo soo gaartay iyo wixii la mid ah haddaba markii aan ka eegno dhanka siyaasadda waxaa jira laba wajiilanimo weyn oo ku hareeraysan arrinta Falastiin laba wajiilanimadaas dhinacyo kala duwan ayaan ka eegi doonaa sida laba wajiilanimada dunida guud ahaan laba wajiilanimada dhanka Israa'iil laba wajiilanimada muslimiinta iyo carabta iyo laba wajiilanimada xagga saxaafadda laakiin barnaamijkeena waxaan doonaynaa inaan ku soo qaadno maanta qaybtan laba wajiilanimada ay dunida ku wajahdo qadiyadda Falastiin insha Allah barnaamijyo kale ayaan ku soo qaadan doonaa laba wajiilanimada xagga Israa'iil xagga muslimiinta iyo carabta iyo weliba xagga saxaafadda laakiin barnaamijkan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dunida guud ahaan laba wajiilanimada ay ku wajahdo qadiyadda Falastiin laba wajiilanimada ugu horeysa ee qof kasta uu arki karo ayaa ah taageerada aan shuruudda ku xirnayn ee reer galbeedka uu u muujiyey dhanka Israa'iil ayagoo xataa intooda badan aanba soo hadal qaadi karin arrinta Falastiin oo dhahaya waxaan si 100% ula jirnaa Israa'iil arrintaas markii la barbar dhigo dagaalka ka socda Ukraine iyo markii uu bilaabanayay sidii reer galbeedku uga falceliyeen farqi weyn ayaa u dhaxeeya waxaan ka dareemaysaa halkaas inaysan arrintu aysan ahayn bini'aadamnimo iyo waxyaabaha la sheegaya iyo xuquuqul insaan iyo waxyaabahaas ee arrintu ay tahay baab kale maxaa yeelay Ukrainiyiinta aad ayaa loola jirsaday ruushkana aad ayaa loo eeday jiray tusaale ahaan Israa'iil Gaza korontada ayay ka jartay biyihii daawadii isgaarsiintii wax walba dhulkana waxa ay dhigtay inta badan dhismihii laakiin ma maqlaysa cid ka hadlaysa halka ay reer Yurubka aad uga hadli jireen dhanka Ukraine haddii ay ka dhacaan tusaale ahaan haddii la duqeeyo guryo shacab iyo wax la mid ah si kulul ay uga hadli jireen reer galbeedka dhanka Ukraine laba wajiilanimada gaar ahaan Mareykanka tusaale ahaan Mareykanka dagaaladii 11 Sebtembar waxaa uga dhintay dad 3,000 iyo jajab ah arrintaas darteedna waan xasuusanaa waxa uu burburiyay 10 wadan in ka badan laakiin Falastiiniyiinta hadda 4,000 ayay dhaafeen laakiin agtiisa wax ay ka taama jirto taas markaas waxaad dareemaysaa dadka dhimanaya ayaa kala duwan ee dhimashada waa isla dhimashadii laba wajiilanimada caalamka ee ku aadan Falastiiniyiinta waxaa ka mid ah maalin kasta waxaa maqlaysaa Israa'iil inay jirto xaq ayay u leedahay oo Falastiiniyiintu inay jiraan xaq uma laha miya Israa'iil inay istifaacdo xaq ayay u leedahay ka waran Falastiiniyiinta difaacaan xaq uma laha sida hadalka loo dhigayo dadka degan Gaza dembigooda lagu leenayo waxa ay tahay in ay Xamaas u taliso okay kuwan kale dembigooda ma noqon karo miya inay Netanyahu u taliyo tusaale ahaan dadka mustawdiniinta loo yaqaan ama settlerska oo guryaha xoogga ku qabsada way hubaysan yihiin Israa'iil ayaa hubaysa waxayna dhibaateeyaan dadka shacabka ee Falastiiniyiinta laakiin adduunku argagixiso uma yaqaan bal qofka hubaysan bale waxaa loo yaqaanaa in ay yihiin shacab ayaga oo hubaysan ayaga oo dadka soo weerara ayaga oo guryaha xoog kula wareega ayaga oo dadka dila oo la yaqaano kii ka dhinta waxa uu xisaabsan yahay shacab laakiin Falastiiniyiinta kii ka dhinta wuxuu xisaabsan yahay Xamaas tusaale ahaan waxaan maqli jirnay wadamada reer galbeedka oo aad uga xanaaqsan in dhibaato loo geysto isbitaal iskuul goobaha cibaadada shaqaalaha UN-ka saxafiyiinta dhaqaatiirta iyo wixii la mid ah laakiin Israa'iil meeqay burburisay iskuul meeqay burburisay isbitaal meeqa masaajid iyo kaniisadaad ayay duqaysay shaqaalaha UN-ka meeqa ayay ka dishay meeqa saxafi ayay digisay dhaqaatiir meeqa ayay dishay laakiin wax isweydiinaa ma jirto xataa waxaa fursad loo siinayaa in ay inkirto oo tiri aniga ma dilin waana la aqbalayaa dadka kale laba wariyo meesha lagu dilo dunida waa loo yahay qeyrada ka dhacda hogaamiyayaasha caalamka waxaad ka maqlaysaa qofkii meeshaas ku dhinta duqeynta Xamaas ayaa ka mas'uul ah okay dhanka kale qofka ka dhinta Israa'iil mas'uul kama noqon karto miya Israa'iil wax walba inta halayso ayay haddana inkirtaa waana laga aqbalaa tusaale ahaan Iraq waxaa lagu weeraray in ay haysatay hub halis ah inkasta oo ay tiri ma haysano laakiin lagama yeelin waana la burburiyay Iraq laakiin waxaa la ogyahay Israa'iil inay xataa nuclear haysato hub kiimikaalana ay adeegsato laakiin haddii ay inkirto
ma samayn haddii ay tiraa waa saxa la leeyahay war kale ma jiro dad badan oo siyaasiyiin ah ama caan ah waxyaabaha aad ka maqlaysid waxaa ka mid ah israa'iil ha loo duceeyo inta badan ma maqlaysid qof dhahaya gaza ha loo duceeyo iyo waxyaaba lamid ah laba wajiilnimada waxyaabaha aan ka soo qaadan kara waxaa ka mid ah dhowr qof oo caan ah oo ay ka mid yihiin fanaaniin iyo waxyaaba lamid ah iyo jalaayaal dad lamid ah oo soo qaadanaya sawiradii falastiiniyiinta iyo dadkii ka dhintay ilmihii dhaawacyadii inta sawiradooda soo qaataan ayay leeyihiin ha loo duceeyo israa'iil laba wajiilnimada waxaa kaloo ka mid ah markii dadka falastiiniyiinta taageersan ay mudaaharaadaan waxaa la leeyahay xamaas ayay taageersan yihiin waana la kala burinaya xataa wadamada yurub oo dhihi jiray waxaan aaminsannaha xorriyadda hadalka iyo waxyaabaha lamidka ah markii la taageerayo falastiiniyiinta waxay leeyihin waxaad taageerayseen xamaas wayna kala eryayaan waxaan ognahay wadamo badan tiifiyada lagu sheega caalamiga iyo idaacadaha caalamiga lagu sheego inta badan inay dhanka israa'iil ka hadlaan oo aysan ka hadlin dhanka falastiiniyiinta waxyaabaha ay ka sheegaanna ay ka mid yihiin brobagando laakiin qofkii isku daya inuu u damqado dhanka falastiin waa la ogyahay in xataa facebooka iyo meelaha lamidka akaunka laga xireeyo halka meel oo hadda dadka falastiiniyiinta taageersan ay hadalkooda ku dhiibtaan waxaa ka mid a exka ama wixii loo oqoon jiray twitter waagi hore asagana cadaadis ayaa ku socda wadamada yurub in aan arrimaha noocaasa in looga hadlo exka la diido oo aan la ogolaan aawa xorriyaddii ay sheega jireen waxyaabaha aan ka maqlo waxaa ka mid a hogaamiyaasha caalamka inay dhahaan xamaas nabad waxaa ku raadsato okay waxyaabaha aan ognaha waxaa ka mid ah in ururka loo yaqaano PLO ay muddo dheer si nabada wax ku raadinayeen waxaana ognahay maanta waxa ay ka taliyaan meesha loo yaqaano daanta galbeed wax ay ka qaban karaanna ma jirto xataa ciidamadoodu si ay u raaligeliyaan yahuudda waxa ay wax ka dhibaateeyaan dadka falastiiniyiinta si ay u raaligeliyaan nimankaas laakiin ilaa hadda wax loo qabto miyaad garanaysaa ama wax loo ogolaaday miyaad garanaysaa labawajiilanimada waxaa ka mid ah in dadka yahuudda xirto oo intaasoo sane ay iska soo xirxiraysa sabab la-aan aysan wax dhiba lahayn loo yaqaano maxaabiis laakiin xamaas dadka ay xirtay waxaa loo yaqaanaa inay afduubteen tusaalehaan dadka xamaas xirtay waa la afduubay laakiin dadka yahuudda xirto maalin kasta xaq ma leh ayadoon qofka maxkamad la soo taagan ayuu intaasoo sare iska xiraa karaa laakiin wax ka hadlaa ma arkaysid waxaad kale ogaanaysaa waxyaabaha loogu yeero xuquuqul insaanka shuruucda caalamiga ah iyo waxyaabaha lamidka ah in ay yihiin been dadka kale loogu talagalay oo ayaga aysan qaban taasna waa mid ka mid a laba wajiilanimada dhinaca kale ee laba wajiilanimada haddii aan eego wadamo badan oo waxaa jira falastiin taageersan siyaasad ahaan laakiin ayagu waxyaabaha ay geystaan aysan ka shar yareen waxyaabaha yahuudda geysato tusaale haddii aan ka soo qaadno uganda oo kale waa ognahay waxyaaba meelo badan ay ka geysteen sida soomaaliya iyo suudaan iyo meelo lamid ah laakiin waxay leeyihin falastiin aan taageersanna ruushka ka waran dhibaatooyinka oo caalamka ka wado meelaha ay kamid tahay suuriya suu dadka u dhibaateynayo iyo qaybo xataa ka mid a waddankiisa dadka muslimiinta sida uu u dhibaateeyey laakiin wuxuu iska dhigayaa wax taageersan falastiiniyiinta turkiga ka waran dhibaatooyinka oo u geysta dad badan oo ay ka mid yihiin kurdiyiinta laakiin falastiin qof u danqanayo ayuu iska dhigaya china ka war waa ognahay dadkii igoorka loo yaqaanay dhibaatada ay u geysteen laakiin waxay muujinaysaa inay xoogaa ay falastiin taageersan tahay iiraan ka war meeqa meel ayay dhibaato ka wadaa yeman suuriya ciraaq waddankeeda gudaheeda laakiin waxay iska dhigayaan wax taageersan falastiiniyiinta waa laba wajiilanimo naftigeedu ka waran suuriya dadkeeda dhibaatada ay ku hayso muddo 10 sano ah ay madaxa ka garaacayso ilaa haddana ka garaacayso laakiin waxay iska dhigayaan dad taageersan falastiiniyiinta waa laba wajiilanimo haddaba arrimahaas iyo arrimo badan oo aan ka gaari waayey ayaa jira oo ku saabsan laba wajiilanimada caalamka guud ahaan ee arrinta falastiin mawduucana xeega waxaan uga hadli doonaa insha allah laba wajiilanimada waxaa loogu yeeray israa'il ee ku aadan falastiiniyiinta